kusoo dhawaada daawadayaal warbixin aan ku eegayno taariikh nololeedka marxuum cabdiraxmaan cumar cusmaan injineer yariisow gudoomiyihii gobolka banaadir oo maanta ku geeriyooday dalka qatar. allaha u naxariistay marxuum cabdiraxmaan cumar cusmaan injineer yariisow waxa uu ku dhashay degmada hodan ee gobolka banaadir 26 agosto sanadkii 1965. waxbarashadiisa dugsiga hoose dhexe iyo sare waxa uu kaga baxay banaadir secondary school isagoo sidoo kalena ka qalin jabiyay jaamacadda gahayr kulliyadda civil engineer sanadkii 1986. shaqooyinkii uu soo qabtay dawladda hoose ee London intii u dhaxaysay sanadihii 2000 ilaa 2003 waxa uu noqday shir gudoonka kooxdii Somali Concern Group intii u dhaxaysay bishii May 2004 ilaa Oktoobar 2008. waxa uu noqday madaxa xafiiska ra'iisul wasaaraha dawladdii ku meel gaarka ahayd intii u dhaxaysay Oktoobar 2008 ilaa February 2009. waxa uu noqday agaasimihii habmaamuuska xafiiska madaxweynaha intii u dhaxaysay February 2009 ilaa Agost 2009. agosto 2009 waxaa loo magacaabay wasiirka maaliyadda dawladdii ku meel gaarka ahayd isagoo oo xilkaasina hayay ilaa July sanadkii 2010. bishii July sanadkii 2010 waxaa loo magacaabay wasiirka warfaafinta iyo hanuuninta dadweynaha dawladdii ku meel gaarka ahayd isagoo oo xilkaasi hayay ilaa bishii December sanadkii 2010. 3 December 2010 waxaa loo magacaabay la taliye sare ee ra'iisul wasaaraha Soomaaliya iyo afayeenkii dawladdii ku meel gaarka ahayd isagoo xilkaasina hayay ilaa 19 June 2012. 20 June sanadkii 2012 waxa uu noqday agaasimihii Radio Barkulan isagoo oo xilkaasina hayay ilaa 25 Abriil sanadkii 2013. 26 Abriil sanadkii 2013 waxaa loo magacaabay la taliye sare iyo afayeenka xafiiska madaxweynaha Soomaaliya isagoo oo shaqadaasina hayay ilaa 23 Abriil sanadkii 2014. intii u dhaxaysay 24 Abriil sanadkii 2014 ilaa 21 March sanadkii 2017 waxa uu ahaa la taliye sare oo dawladda Soomaaliya kala taliya warfaafinta iyo isgaarsiinta. 22 Maarso sanadkii 2017 waxaa loo magacaabay wasiirka wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo dalxiiska dawladda Soomaaliya. 22 Janaayo sanadkii 2018 waxaa loo magacaabay gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho. waxa uu ifka uga tagay injineer Cabdiraxmaan Cumar Cusmaan Yariisow 7 caruur ah oo kala ah 2 wiil iyo 5 gabdhood. maanta oo ay taariikhdu ku beegan tahay 1 Agosto sanadka 2019 ayuu ku geeriyooday magaalada Doha ee dalka Qatar. inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun. ilaaha u naxariiso gudoomiye Yariisow ehelkii iyo asxaabtii iyo ummadda Soomaaliyeedna samir iyo iimaan ee baha ka siiyo. الرحمن الرحيم إنا لله وإنا إليه راجعون. إنا لله وإنا إليه راجعون. حكومة فدرالك الصومالية دولة فدرالك الصومالية مدحوينة محمد عبد الله فرماجو رئيس الوزراء يدمان قولها وزير هذا حكومة فدرالك الصومالية وحن تعسيو درينا الله نحرستو ولكن عبد الرحمن عمر عثمان وكما قاعديرا انجينير يريسو قدوميه قبل كبنادر أهنا دوق مقالة مقدشو الله نحرستو إلهي نحرستي جنو فردوسها كورابيو سبرية إيمانها كسير دمان bulshadooyinka Soomaaliyeed waxaan tacsiino dareynaa qoyskii uu ka geeriyooday xaaskii iyo caruurtiiba ehelkii iyo qaraabadii shacabweynaha reer Muqdisho ee gudoomiyaha waxa maayirka waxa waxa mas'uul muwaadin Soomaaliyeed aqoonyahan ah edeb iyo akhlaaq leh golaha wasiirada waa ku wada jirna waa ka tirsaneen waxa uga marakacayaa inuu shakhsi wanaagsan ahaa gudoomiyaha gobolka Banaadir iyo duqa magaalada oo shaqo badan oo hawlkar ah waxaan dhammaan ummadda Soomaaliyeed iyo shacabweynaha gobolka Banaadir dhamaantood iyo qoyskii iyo qaraabadii iyo ehelkii iyo asxaabtiiba leeyahay sabir iyo iimaan Allah u naxariisto
gacan ka xaq daran ayaa dishay innagana ilaahay hay nooga daba naxariisto markaan miiqaamkiisa gaarno waqtigeena ay timaado guddida halkan taagan oo ka tirsan golaha wasiiradu waa guddida qaran ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya mudane Xasan Cali Khayre uu magacaabay inaanu ka shaqeyno aaska qaran iyo qabanqaabada aaska iyo soo qaadista meydka iyo duugista intaba iyo munaasabadaha kale oo lagu xusayo Allah u naxariistay walaalkeen Cabdiraxmaan Cumar Cismaan injineer Yariisow waxaan kaloo doonayaa inaan sheego in madaxweynuhu amray in 3 cisho oo bareer diiq ah aanu ku dhawaaqno 3 cisho calankana hoos loo dhigo insha Allah waa sameeynayna xukuumaduna waa fulinaysaa waxa kaloo laga bilaabo saacadan idaacadda radio Muqdisho iyo TV-gaba laga saaray Quraan loogu bareer diiqayo loogu ducaynayo marxuumka Allah u naxariisto waa mahadsantiin إنا لله وإنا إليه راجعون وحوي هرتر dad oo dhan waa dhimanayaan laakiin geeridani geeri aad iyo aad u xun naxdin badan oo si xun oo fool xun u dhacday weeye uu dhimanayay laakiin sida uu ku dhintay ayaa si la yaab leh ilaahay waxaan uga baryaynaa naxariistii janno dadweynaha Soomaaliyeed guud ahaan iyo qaraabadii uu ka tegay gaar ahaan iyo dhammaan ummadda Soomaaliyeed oo dhan waxaan tacsi tiraan lagu marinayaa idaacadda qaranka oo aan isleeyahay wadawaynu wada dhimanaynaa laakiin ninkaasi waa inaga baxay wuxuu ahaa nin aad u dadaal badan shaqadiisa aad ugu dadaala aan wadaniyadiisu ay fiican tahay oo dadka Soomaaliyeed u naxariisanayay oo aan ahayn qof macangaga oo xun ayuu ahaa oo dadkiisa iyo dalkiisa dareenkeeda leh hadda waxa weeye arrinta dhacdayna waa arrin aad iyo aad naxdin u leh oo fool xun waxaan ka digaynaa in ayna yacni meesha uu ku dhintay waa meeshii ugu adkayd amni kolka la yidhaahdo oo aada u adkayd haddana shadaadiintu meelay ka soo galeen ba soo gala si ay usoo galeenna ma garanayo oo ay arrintaasi u dhacdo kolka waxaan leeyahay tacsiimaan dirayaa anigoo ku hadlaya magaca aqalka sare ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya iyo kaygaban guud ahaana dadka Soomaaliyeed iyo dawladda Soomaaliyeedba waxaan dirayaa tacsida isagana ilaahay jannadii firdawsa geeyo إنا لله وإنا إليه راجعون ومدى الصوماليات ميل والبو عالم كأي كجوغان وحانو قطعسيينينا غيرده كنت من إنجير عبد الرحمن عمر يريسو ومانتا كوغيريو دي دوحة ورنتي الأول والسنة داوعة سوغاري قدوميها طمان وحان لنا هي أمدى سمر إيمان إلهي هنقسيو injineeriso waxaan isla soo shaqeynay 2010 oo uu ahaa wasiirka lacagta xilligaas laga soo bilaabo wuxuu ahaa nin Soomaalinimada aad u jecel bulshada Soomaaliyeedna raba in uu u adeego wuxuuna ahaa runtii waxaa lagu xasuustaa in aad u degan oo dadka u tura oo tabarta daran marka ilaahay ha u naxariisto injineer Yariisow ummadda Soomaaliyeedna ilaahay samir iyo iimaan ha ka siiyo ehladii iyo qaraabadii uu ka geeriyoodayna ilaahay samir iimaan ha ka siiyo injineerka nin noocaas oo ahaa taariikhdiisa oo faahfaahsan mar kale aan idin siin doonaa insha Allah